وسلامنا سيدا دريسنتين با شركي شنتي بيشا إلا طبعا بيشا سعودي أو كنا سابسنا رمي أمنية يا سياسة دلكا يا سو إدلادي تاريخ مركز طبعا كبيشا ومانتا وحاكلا إذا لسه عسينية شركة سبحان الله وتلقى لبا معلومات إنه هذا balse maalin jimco nagu soo aaday iyo furitaanki kala fadhiga baarlamaanka ayaa arintaasi ilaa xilligaas uu la soo gaaray marka haddana waxaan rabaa inaan idin maro warmurtiyeedkii ka soo baxay golaha amniga qaranka golaha amniga qaranka ayaa kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho inta u dhaxaysa 5 ilaa 10 bisha Luulyo 2017 kulanka waxaa shir gudoomiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo waxaana ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane xasan cali khayre ku xigeenka ra'iisul wasaaraha mudane mahdi maxamed guuleed madaxweynaha dowlad goboleedyada Puntland mudane dr cabdiweli maxamed cali gaas Jubbaland axmed maxamed islaam koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan galmudug mudane axmed ducaale gele hirshabeelle mudane cali cabdullaahi cusable gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane taabid cabdi maxamed wasiirada cadaaladda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga arrimaha gudaha federaalka iyo dastuurka dib u heshiisiinta gaashaandhigga amniga gudaha taliyayaasha ciidamada qalabka sida iyo la taliyaha amniga qaranka golaha amniga qaranka waxa uu bogaadiyay shaqada wanaagsan ee ay dawladda dhexe ka qabatay arrimaha amniga sida xasilinta caasimadda siyaasadda iyo xoojinta xiriirka ka dhaxeeya dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada kadib markii uu goluhu qiimeeyay xaaladaha amni ee ka jira dalka waxay isla garteen in la xoojiyo dagaalka lagula jiro kooxaha nabadiidka ah meelna looga soo wada jeesto cid kasta oo ku taageerta dhaqaale gabaad ama faafinaysa afkaartooda gurxan goluhu markii uu dib u eegay heshiiskii amni ee bishii abriil 2017 una dhageystay talooyinkii ay soo jeediyeen guddi hoosyada difaaca iyo amniga ee golaha shacabka tixgeliyeyna aragtiyada kala duwan ee bulshada waxaa talooyinkaasi lagu dhigay qorshaha amniga qaranka goluhu waxa kale uu ku heshiiyey samaynta guddi farsamo oo ka shaqeeya dhamaystirka qaab dhismeedka amniga qaranka oo ay ku jiraan qaab dhismeedka ciidamada nabad sugidda booliiska iyo ciidanka asluubka guddigaas waxa uu ka kala imaan doonaa dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir golaha oo garowsan baahida loo qabo in siyaasad midaysan laga yeesho horumarinta nidaamka federaalka dib u eegista dastuurka iyo doorashooyinka qof iyo cod 2020 waxay ku heshiiyeen in taabogelinta qodobadaasi loo maro hanaan ku salaysan wada tashi joogto ah oo 3 biloodba mar ah golaha wuxuu isku raacay in sharciga lagu dhisayo golaha amniga qaranka la horgeeyo golaha shacabka si waafaqsan qodobka 111 faqradda ha ee dastuurka ku meel gaarka goluhu waxa uu meel mariyay xeerka anshaxa ee kulamadooda iyo fulinta qorshaha amniga qaranka ugu dambeyntii kulanka golaha amniga qaranka wuxuu dhici doonaa 3 biloodba mar wabillahi tawfiiq